بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزير الدولة حفيظ كلا وزارها قدوميها قدية فرسمو هرجلينتا أو يتاكلينتا قدية فرسمة معمولة دورشوين كذلك وحقين كيسة لما أنت وين سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا لو سعطان قدوة حاجة الوزارة ومقعابي inay dul istaagaan dib u isku sameeyaan gudiyada doorashooyinka hore loo xulay 19 bisha ay naga dhamaatay oo aan wasaaraha wareegto ku soo saaray ayadoo gudiyada dib u isku sameeyay maanta waxaan halkan u fadhinaa in anaga gudigayagii wasaaraha magacaabay kor istaaga gudiyadii doorashooyinka hore aan dokumentiga ku wareejino gudiga farsamada ee xafiiska wasaaraha u qaabilsan taabagelinta doorashada oo madax ka yahay Mr. Abdul Qadir Abdul inay arintan nagala wareegaan ayagana uu doorkooda noqon doono maanta waxay ka dambeeya inay u yeeraan gudiyadii ay xamar ku soo xareeyaan tababaraan u diraan fildiyadii miisaaniyadii doorashada u raadiyaan ay la taabageliyaan doorashada ama maamulkeeda ha noqoto ama amnigeeda ha noqoto waxaan rajeynayaa insha Allah taala inay hawsha gudigan ay ka soo dhalaali doonaan rag waaweyn oo way arag ah oo horey doorashooyinka wadanka ka dhacay madax oo ah baa ku jira oo kamid yahay abukaata dhigay oo rajeynayo wixii laga bartay doorashadii 2006 inuu 16 inaysan soo noqon ay ka shaqeyn doonaan خير بنو رجينا هذا وحن ربا إن نكون رجيو دوكومنتي جديد دورشة هير فدرال كوي خلافاتك كوي معمول قبل ديدا سي هو شو هذا يوقف صدان أينا أي دور كذا قصور على الآن أنت صار من يديروا ذا نو والسلام على هذا وحن رجينا يا ليسس كم رجينا بدون قدومي يقولوا خير بنو رجينا هول وعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabay kaliya inaan laba qodob aan ku daro annagoo ku hadlayo magaca xafiiska wasaaraha qodobka koobaad waxa weeyaan in aan kula dardaarmo gudiga oo aan ku kalsooni badan ku qabo kartidooda iyo aqoontooda in ay inagoo fulinayna oo amirtii ra'iisul wasaaraha qaranka in aan dhamaystirno xilliga loogu talagalay aan ku dhamaystirno diyaar garowga iyo soo xareynta gudiga iyo tababaradooda oo aan rajeynayo in aan mandate-ka ama xilliga kooban inoo xadidan aadka u yar lagu soo koobo laguna dhamaystiro waxaan taa kula dardaarmi lahaa oo rabaa inaan ku xoojiyo gudigii ra'iisul wasaaruhu magacaabay hadda aan ku wareejinay magacyadii gudiga maanta qodobka labaad aan rabo inaan ku daro hadalka wasiirka iyo gudiga waxa weeyaan in aan kula dardaarano cid walba oo ay khusayso oo dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka iyo cid walba oo qayb ka ah hanaanka doorashooyinka inay ka qayb qaadato fududeynta iyo tashiilaadka looga baahan yahay marxaladan maadaama aan xilli iyo jadwal kooban aan ku shaqaynayno marka waxaan rabay in aan fariinta hawada u mariyo waana ula xiriiri doonaa si gooni ah iyo hadba cidda ay khusayso iyo arinta inaga soo gasha si ay noogu fududeyso hawsha doorashooyinka waxaan rajeynayaa cid walba oo kaalin ku leh hadday noqon lahayd dawlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba inay nagala qayb qaataan fududeynta hawshan aad iyo aad u mahadsantihiin